shacabka ku nool gudaha Somaliland haddii ay dib u eegaan waxa gudaha deegaanadaas ka dhacayay 3 sano ee waliba u dambeysay waxay fahmi karaan in isbeddelka siyaasadeed iyo kan maamul ee ku yimi nidaamkii dawladeed ay in ka badan 30 sano ka dhowrayeen aqoonsi iyo dawladnimo ka madax bannaan Soomaaliya waxayna garan karaan markaa inuu yahay mid si qoto dheer oo si wada jir ah waliba loo soo qorsheeyay guud ahaan natiijooyinka maanta lala kulmayo ee qorshayaalkoodii ay horreeyeen tusaalooyin maxay ahayd siyaasadii ka dambeysay in gudaha Somaliland ay ka dhacaan dagaalo qabaa'il oo maamulkii Somaliland iyo madaxdiisii safka hore ka galiyo ay u horboodayeen ayagoo og in dagaal beeleed uu ku sababi karo burbur iyo kala tag nidaamkii lagu wada jiray isweydiinta labaad weerarkii Laascaano duqeyntii shacabka magaaladaas rabshadihii iyo cadaadiska ay Somaliland awood military isugu geysay Laascaano ilaa dagaalkii Gooja Cadde sidee madaxda aqoon-yahanka waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland ay u fahmi waayeen inay dhammaan arrimahaas keenayaan natiijooyin ugu dambeyn meesha ka saaraya hanaanka juquraafi baaxadda maamul ee lagu wada jiray dhantaalayana mid ahaanshihii deegaan ee markaa jiray haddaba ma ilduuf baa la oran karaa waxa dagaal beeleedyo ahaa ee ka dhacayay gudaha Somaliland weliba sanadihii u dambeeyay jawaabtu waa maya waayo sanadihii ay colaaduhu si xoog leh u taagnaayeen waxa ay madaxdii Somaliland iska indhatireen boqolaal fursadood oo ay ku xallin kareen ama ku hakin kareen si kala fogaanshaha iyo kala dilkii dadkii Soomaaliyeed ee ku wada midaysnaa magaca Somaliland xilliga ugu dambeyn colaadihii ka bilowday Laascaano ma dhaliyeen wax murti siyaasadeed oo ay mahdiyeen maamulka iyo shacabka Somaliland haddii ay jawaabtu maya tahay dhinaca kale ma saameeyeen jiritaankii guud ee Somaliland dhan walba jawaabtu waa haa iyadoo waliba aan loo fikirin sababtu waa in dagaaladaasi ay gogol xaareen burbur dhaqaale mid ciidan mid siyaasadeed iyo mid deegaan oo soo gaaray nidaamkii guud ee Somaliland waxaana curtay maamulka waqooyi bari oo in ka badan 3 meelood 2 meel qaatay dhul ahaan loona aqoonsaday maamul ka mid ah federaalka Soomaaliya welina waxaa la sii filan karaa in deegaano kale oo dhanka xeebaha Somaliland ay astaanta buluuga si toos ah u qaataan ayadoo oo ay durba halkaasi ka bilowdeen dagaal beeleedyadii sababi lahaa arrimaha aan ka hadlayo haddaba dulucda ayaa ah waxaan oo daruufo siyaasadeed ah dib u dhacyo maamul hoos u dhac dhaqaale iyo mid awoodeed ee jiritaanka Somaliland ma wax iska yimidba mise waa wax ku yimi qorshayaal siyaasadeed shaki kuma jiro inay tahay xaalad ku qotonta qorshayn siyaasadeed haddaba ma wax ay dejisay ama qorshaysay dowladda federaalka Soomaaliya si ay u lumiso sheegashada Somaliland ee go'aansataaga jawaabtu ayaa noqonaysa maya sababtoo ah nidaamka federaalka Soomaaliya haddii uu sidan fudud u kala qaybin karo una maquunin karo Somaliland waa hore ayay arrimahani dhici lahaayeen laakiin waa xaqiiq in federaalku ka faa'iideystay fursado siyaasadeed oo badan oo ay madaxdii dawladdii hore ee Somaliland ay dayaceen sida xaqiiqda wuxuu ahaa qorshe siyaasadeed oo ay qayb ka ahaayeen madaxdii hore ee maamulka Somaliland ee hogaaminayay xilliga waxayna u egtahay in siyaasiyiintii Somaliland oo ay aad ugu adkaatay in shacabkooda si toos ah ugu sheegaan in aqoonsigii la goobayay 30 sano ama 33 sano uu suura geli waayay haddana ay dantu leedahay hal lagu noqdo dalweynihii Soomaaliya oo aan wax la qaybsano ee dadka Soomaaliyeed hadalkan oo toos loogu jeedin karin ama in lagu jeediyo shacabka Somaliland ay dhalin karaan xaalado buuq iyo rabshado badan oo wajaha siyaasiyiinta Somaliland qudhooda xitaa guryooda in lagu beegsado ayaa loo sameeyay marxalad runtii hordhaca oo arrintaas sahli karta in dadkuna fahmaan sidaas awgeed waxaa qaab siyaasadeed loo sii abuuray daruufo siyaasadeed oo shacabkii Somaliland si dabacsani ay wax
kaga baran karaan ama ay kusii baran karaanba loogana dhaadhicin karo in 30 sano kadib wax lala qaybsan karo Soomaaliya ilaa ay dadku wada fahmaan in dunidu u aqoonsan tahay jiritaankooda guud ama magaca guud ahaan wali maamulkaasi inuu ka tirsan yahay Soomaaliya taas oo waliba u muuqata hadda in si tartiiba ay siyaasiyiinta Somaliland u helayaan awood ay dadka ugu bandhigaan shacabkuna u helayo marxalad uu ku fahmi karo xaqiiqda siyaasadeed ee jirta waayo shacab badan oo Somaliland ayaa horey looga dhaadhiciyay in Somaliland ay dhan walba ka guurtay Soomaaliya ama ay ka go'day haatanna ay si dhammaystiran uga kaaftoontay Soomaaliya laakiin dagaaladii dhawaa dhacay dhismihii maamulkii waqooyi bari ama 3 sano u dambeysay Somaliland shacab badan oo ku nool ayaa hadda waxay indhaha ku kala qaadayaan ama ay fahmayaan inay jiraan waxyaabo badan oo wali kaga xaniban dhinaca Soomaaliya oo wali dal ahaanshaha ay siyaasiyiinta iyaga hogaaminaya ay u sheegeen iyo dowladnimada ay u sheegeen aysan ahayn mid dhammaystiran oo qabya tusaale hadalkii uu jeediyay dhawaan madaxweynaha maamulka Somaliland ee Ciro ee uu kaga hadlay inay wax badan wadaagaan wali Soomaaliya tusaale uu kaga hadlayay furaha guud ee isgaarsiinta ama telefoonka 252 oo kale uu kaga hadlayay maamulka hawada uu kaga hadlayay qaybo badan raalahada uu kaga hadlayay qaybo badan oo kamid ah waxyaabaha sida guud loo wadaago runtii wuxuu soo qaatay isagu 3 ilaa 4 arin oo uu marka iyada rabay in uu ku yareeyo cadaadiska xoog gale ee shacabka Somaliland ay runtii saarayaan wasaaradda hawada iyo duulista ee Somaliland sababtuna tahay dhibaatooyinka e-visa iyo xanibaadda ay la kulmayaan marka madaxweynuhu jeedintiisa waxay ahayd in shacabka uu si dhib yar oo tartiiba wax u sii dareensiyo laakiin inta iyo in ka badan ayaa jira oo runtii maamulka Somaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya wali aan loo kala furi karin oo aan la oran karin ama aanay u imaan karin sawir in Somaliland dhan walba ay ka maarantay Soomaaliya ama ay ka dhammaystiran tahay xagga maamul jiritaankeeda siyaasiyiinta Somaliland way og yihiin ayagu xaqiiqda jirta maanta runtii wareerka gelinaysa shacabkooda laakiin waxay aaminsan yihiin sida dhabta in aan la gaarin xilligii shacabka la fahamsiin lahaa xaqiiqooyinka jira ee sababaya isbedelada 30 sano kadib si aad iyo aad u soo kordhaya una muujinaya rajooyin in Somaliland aysan runtii ka maarmayn inay wax la wadaagto Soomaaliya taasoo waliba loo sawirayo inay ku imanayso daruufaha guud ee habmaamul ee marka ayada haatan ka jira gudaha Somaliland waxyaabo badan ba soo xusi karnaa tusaale dalbashada miisaaniyadda maamul goboleed ee xubnaha federaalka ay helaan mid lamida ayay warar rasmi oo dhinaca federaalka iyo dhinaca Somaliland ba xaqiijiyeen dhowr jeer oo horena ay hay'adaha labada dhinac ka madax bannaanba ay shaaciyeen in Somaliland si lamida ay doonayso inay hesho miisaaniyadaha dhaqaale ee dowladda federaalka ay ku taageerto maamul goboleedyada kale ee dalka tusaale maamulka hawada biyaha iyo kaabayaasha guud ee dhaqaale ee dalka oo looga dambeeyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka soo bilow saxiixii federaalka uu suurageliyay in DP World ay la wareegto dekada Berbera walow taa dad badan oo shacabka Somaliland aan aad loo fahamsiin haddana laakiin xaqiiqda ayaa dekada Berbera la wareegista DP World ama hay'adda Imaaraadka runtii waxay ku timid ogolaansho iyo saxiix dowladda federaalka Soomaaliya ee ma ahayn midda Somaliland laakiin Somaliland madaxdu qayb bay ka ahaayeen wada hadalka aan sii socdo in dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka ay ixtiraamaan midnimada Soomaaliya oo wixii deeqa Somaliland ku socda la mariyo federaalka Soomaaliya loona hogaansanaado go'aanada federaalka ay ku maamulayso
dalka Soomaaliya laakiin maamulada aan diidanayn kamid ahaanshaha Soomaaliya waxay dowladaha carabtu ula macaamilayaan siyaabo kala gooni ah oo quseeya danahooda gaarka ah taa waxay noo sawiraysaa marka maamulka dhanka Somaliland inuu ka duwanaanayo la macaamilka xagga carabta sidoo kale e-visa Soomaaliya e-visa Soomaaliya iyo kaarka aqoonsiga muwaadinka ay samaysay dowladda federaalka Soomaaliya waa tallaabooyin bilow ah oo si isku mid ah uga dhaqangalaya waqooyi galbeed waqooyi bari ilaa koonfur iyo koonfur galbeed ee Soomaaliya waana mid ah siyaasiyiinta in siyaasiyiinta Somaliland ay aqbaleen waa hore laakiin aan si furan loola wadaagin wali shacabka maamulka Somaliland ku nool dadka Somaliland oo filaya in dowladda federaalka Soomaaliya uu maamulkooda kala xaajoodo caqabadaha jira haatan ayaa waxa taas bedelkeeda furmi doona wada hadal guud oo saddexagal ah oo sida dowladda federaalka Soomaaliya madax ka socota dhinaca ama siyaasiyiin ka socota dhinaca maamulka Somaliland iyo xubno dhexdhexaadiyaal ah oo ka wada shaqayn doona sida Somaliland looga qancin lahaa wax la qaybsiga Soomaaliya waxaana loo dhigi doonaa hab soo jeedin ah oo hal runtii isxiga loogu raadinayo culeysyada runtii haatan isbiirsanaya la soo darsaya shacabka maamulka Somaliland iyo siyaasiyiintooduba goortaas waxay adkaan doontaa in siyaasiyiinta Somaliland ay sidii hore ay u laacaan qodobo adag waayo waxa ugu badan ee wada hadalka micno weyn u samayn lahaa ayaa goor horeba meesha ka sii baxay haddana gorgortanka labada dhan ma noqon doono mid wax la'aan dhigaya Somaliland laakiin haddana waxyaabo badan oo goor hore Somaliland ay fursado badan u haysatay inay kaga faa'iideysato wada hadallada haddii ay suuragalaan ayaa iyana meesha ka maqnaan doona xogahan waxaan ka soo dhex saaraynaa xogaha laga helayo dhinaca Somaliland dhinaca federaalka waxyaabaha miidiyaha ay qorayaan xaaladaha ay arintan warbixinada u dambeeyay arintan ay ka sameynayaan hay'adaha caalamiga marka isu dhiraan dhiriso waxa ku sawirmaya in sida ugu dhaqsiyaha badan uu jirayo is arag Somaliland iyo federaalka waliba Somaliland ka dabacsan sidii hore iyo federaalku isirabida iyo xogo inay golo siyaasadeed dhowr ay dhaliyeen waxaana bilaabanaya marxalada kale madaxweyne Cirro isagana doonaya in waxyaabihii uu buriyay ama uu baabiyay maamulkii ka horeeyay ee uu hogaaminayay Muuse Somaliland runtii wuxuu doonayaa inuu dib meelihii colaadaha lagu furay uu fursado wada hadal uga abuuro fursado isfaham uga abuuro taasoo uu arkayo Cirro in uusan runtii gali karin lagdan siyaasadeed oo dhinaca federaalka iyo meelo kale iyadoo wali gudaha Somaliland ama dhinacyada ay dagaal kaga furan yihiin haddana maamul kale isna saameyntiisa wata dhinaca kale laga sameeyay marka culeysyada gudaha ayuu arkayaa inuu xoog saaro taasoo ay adag tahay in si dhib yar isna uga xalkeeno